Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa sheegaya in kulan degdeg ah la iskugu yeeray xildhibaanada maamulkaasi. Kulankan ayaa waxaa iclaamiyay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal oo fariin u diray xildhibaanada maamulkaasi, iyadoona fariinta la raacin in ujeedada ajandaha laga hadlayo. Inkastoo ajandaha kulanka maanta ee baarlamaanka Galmudug la iskugu yeeray aan la shaacin ayaa haddana Bulay TV waxay ogaatay inay ka hadli doonaan xubnaha guddiga doorashada Galmudug ee muranka uu ka dhashay. Xaalka siyaasadeed ee Galmudug ee ku saleysan doorashada ayaa waxaa hareereeyay khilaaf xoogan, waxaana hoggaanka Ahlu Sunna uu diiday sida ay wax u socdaan ay kulamo kala duwan ku leeyihiin xarunta Inji ee magaalada Dhuusamareeb. Khilaafka dowladda iyo Ahlu Sunna ayaa ka bilowday sida loo maray magacaabista gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha, waxayna Ahlu Sunna dalbatay inuu iyaga ka yimaado maadaama dowladda ay horey u keensatay gudoomiyihii guddiga doorashada baarlamaanka maamulkaasi. Waxaana laga yaabaa in magaalada Dhuusamareeb ay ka dhacdo laba doorasho oo ay kala hogaaminayaan Ahlu Sunna iyo dowladda dhexe, waxayna dowladda qorsheynaysaa inay adeegsato awood ciidan taas oo ka baxsan dastuurka u yaala maamul goboleedyada iyo midda Soomaaliya.